السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel kasta aad joogtaan soo noqod wanaagsan sanad cusub ayaa la galay 2025 2024 waxa uu nagu dhaafay si xawli ah waqtigu waa sida sakiintii oo kaleeto inta aanu ku jarin adiga jar ayaa hore loo yiri hagaag maanta waxaynu ka hadlaynaa mawduuc cusub oo ku aadan dhaqaalaha ay sameeyaan dhalinyarada ka xoogsata ama ka xamaalata wadankan Jarmalka inta ugu badan Soomaalida ku dhaqan wadankan Jarmalka dabcan waxa ay yihiin dhalinyaro xoogsata ama xamaali ha ahaadaan ama sakuurad ha ka shaqeeyaan dabcan waa shaqaale kuwaas oo bishii ay soo gasho lacago income ah haddaba qofka dhalinyarada ah sidee ayuu ku maareyn karaa dhaqaalaha soo gala sanadkii qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalkana qofka dhalinyarada ah sanadkii imise ayuu ka sameyn karaa marka uu sameeyo lacago ishbaaquna ama kayd ah dhaqaalihiisu sanadkaas imise ay noqon karaan waxaan la sheekaystay inta badan dhalinyaro fara badan oo Jarmalka ku sugan kuwaas oo sameeyay dhaqaalooyin kala duwan kuwana waxay ku adkaatay in ay dhaqaale sameeyaan maadaama nolosha dadka bini'aadamka aysan isu mid ahayn inta ugu badan qofka dhalinyarada ah ee single-ka ah marka uu Jarmalka ku nool yahay ayaa la sheegaa inuu sameyn karo dhaqaalo maadaama haddii guri uu degan yahay qof uu la degi karo qofkaasna guriga uu la bixinayo shaqadiisana inta badan joogta hadday tahay oo qofka inta aan dawladda aan ku soo laaban lacagaha ceyrta iyo waxyaabaha caynkaas oo kaleeta ah bishiina uu meel dhigto lacago waxa uu noqon karaa qof yacni wax sameeya dhinaca familka marka la eego haddii familka labada lamaane iyo weliba hadday caruur haystaan oo kaleeto waxa ayna samayn karaan dhaqaale xoogan maadaama dawladdu ay kabayso dhaqaalaha qofka uu ku shaqeeya haddaba Soomaalida ku dhaqan magaalada Hamburg ku dhawaad ilaa iyo 10 dhalinyaro oo aan wareystay ayaan xog yar waxa iga baxday sanadkii imise ayuu sameyn karaa qofka dhalinyarada ah qaaradda Yurub iyo Jarmalkaba waxa la isku raacay qofka inuusan dhaqaale badan oo sameyn karin lacagaha qofka soo galana ay ku noqonayso dawladda inta badan haday ahaaleed waxyaabaha laga rabo lacagii biilka ah ee Soomaaliya aad u direysay iyo weliba lacaguu qofku isagu isticmaalayo noloshiisa gaarka ah laakiin bishii qofku imise ayuu dhigi karaa dadka qaar waxay dhigi karaan 500 oo euro qaarkoodna waxay save gareyn karaan bishii lacag gaaraysa 1000 inta ugu badan xigmad ama lacago group meel ka wada shaqeeya inta wada galaan bishii qof la siiyo ayaa jirta taasna qofku waxa uu ku sameyn karaa dhaqaale xoogan mushaarkaaga haddii uu yahay 2000 iyo weliba 400 ama 2500 ba 2500 baan ka soo qaadeynaa dadka labada sano joogtada u shaqeynaya ka badan qofka bini'aadanka haddii uu lacag diro dadka qaarkii familal ay leeyihiin waxa laga yaabaa inay diraan lacag 1000 gaaraysa ama ka badan dadka kaleetana waxay diraan lacag 500 kuwa waxay diraan 300 qofba tabartiisa 2500 ayaad qaadataa 500 oo kamid ah reerkaaga Soomaaliya ayaad u dirsatay imisa ku soo hartay 2000 ayaa ku soo hartay 2000 waxaad degan tahay guri korontadii waxa dhan marka la isku daro internetkii waa lacag gaaraysa 800 waxa ku soo haraysa 2500 markay ku soo harto 300 kamid ah waxa siisaa noloshaada waa dadka single-kan ka hadlaynayo marka ugu horeysa waxaa qofkaas u soo haraysa 900 lacag gaaraysa 900 haday u soo raacdo 400 oo kamid ah waxa siisaa dariskiisa iyo sidoo kaleeto lacagaha fatraagyada haddii telefoon uu ku jiro dadka qaarkii Soomaali markay qof aad ay arkaan oo kale telefoon inay u qaadaan bishii lacag laga jaraya 500 baa u soo haraysa 500 haddii qofkii uu save gareeyo 12 bil haddaad 500 ku dhufato 6000 waxa laga yaabaa inay xigmad kale ama group kale aad leeshiiso lacag isku darsataan 6 kale ay ku dhasho sanadkii marka qofka dhalinyarada wadankan jooga waxa uu sameyn karaa lacag gaaraysa 12,000
waxaan la sheekaystay hadda kahor wiil saaxiib aan ahayn single buu ahaa waa uu shaqo bilaabay bil kasta Soomaaliya ayuu wuxuu u dirsan jiray lacag gaaraysa 1,000 euro 1,000 euro wuxuu shaqo bilaabay 2018 dhamaadkeeda bil kasta oo aad dirto 1,000 waa sanadkii 12 afar sano kamid ah ayuu wiilka dirayay lacag gaaraysa 60,000 waa uu ka sameeyay qofkaas waxaa la karaa qof yacni Yurub wax ka qabsaday dadaalay ayuu yahay qofka single-ka marka laga gudbo qofka family-ka isaga qarash ahaan qarash fara badan baa ku baxaya maadaama family uu yahay wuxuu u baahnaanayaa tiro adeeg dheeraad ah carruurtu waxbay u sii baahan yihiin dressyadii waa muhiim jarmalka oo kaleeto dharka iyo waxyaabaha caynka markii la gadaayo aad iyo aad ay qaali u tahay dadka qaarkii waxay sameeyaan shaqo gaaban oo loo yaqaano mini job ayay ku daraan 500 dheeraad ayaa qofku u soo dhacaysa waxa uu noqon karaa qofkaas oo kaleeto qof jarmalka ama Yurub ka sameeyay dhaqaale xoogan marka muhiimaddu waxay tahay wixii ku soo galo ha ahaadaan 2,000 ha ahaadaan 1,500 waxa muhiim ah qofka inuu bini aadanka ama dhalinyarada ah ogaado horta dalkan uusan dalkiisa ahayn بريتو وكتجي دونه دايد يسوع يسي صعطه وغيران لو باهي هاي إنه سمعيه وحلو يقانا كريت مالنتا عاد كيت سميسو ومالنتا قفك أساقا كيت كان سمين عاد كده ارتاي نلاش عادي جاي يشقوين كمر كان يغنو سومالي انتو قبضان ودن كان جرمالك عادي عاد بيوشقايستان بقول كي بس ديتن قبل يويلل وحليه كرا ودد حمالتا oo shaqaysta boqolkiiba 10 dabcan wadad wax barta oo la haysta wadankan halka boqolkiiba 10 kalena ay yihiin hooyooyin caruur iyo dad kaleeto oo nolosha aan awoodin inay shaqaystaan haday halad sharciye la siin haday halad dad ah nolosha marka waa sidaas baraha bulshada inta badan ama dadka kale ee Yurubta kala jooga Jarmalku waxay sheegaan inuu yahay dal dhibaatadiisu ay iska badan tahay laakiin taasi ma aha hadaa tahay qof jecel nolosha inuu yani guul fiican ka gaaro hadana garan kara halka uu ka bilaabay nolosha dabcan qofkaas wuxuu noqon doonaa qof guuleysta arrimo badan oo qofku uu jecel yahay ayaa noloshu waxay ka noqotaa tan ugu horeysa caajiskuna waxay qayb ka qaadataa qofku inuu hoos u sii dhaco oo uusan guuleysan ma jecleed in noloshaada qorshayso mana dareemaysaa qofku inuu hadiiba qurbaha u yimid dib uu ku yimid dhaqaalo uu ku soo baxay uusan lacag sameyn taasi waxay noqon kartaa dhibaato halkeeda ah waxa jira xigmad oranaysa hadii aad ku fashilanto inaad wax qorshaysato waxaad qorshaysaa inaad fashilanto yani waxa ku qorshaysan inaad fashilanto taas oo loola jeedo qofka hadii uusan qorshe yeelan in sidaasi uu ku fashilmi doono qorshe la'aanta ayaa qayb waxay ka noqotaa fashilka nolosha qofka bini'aadanka ah hada xigmadaas dhuux qofka uu ka qorshe fiican yahay ayuu ka horumar iyo qorsheyn wanaagsan yahay markaan ku leeyahay qof aad isla soo gasheen 2015 Jarmalka hadii uu ka dhaqaala badiyo dabcan adiguna wali meeshaadi aad joogto waxa tahay mid dhiban waxa jirta sidoo kaleeto qorshooyin qofku uu doonayo inuu nolosha guul ka gaaro nolosha qofka waxa lagu soo koobaa baa la yiri waqtigiisa qofka dhalinyarada ee Jarmalka ku suganna waxa muhiim ah in waqtigiisa inta ugu badan uu ka faa'iideysto waqtigaaga oo la isugu geeyo ayaa saameynta noloshaada oo dhan ah haddaad waqtigaada ka faa'iideysatana macnaheedu waxa ay tahay noloshaada waad ka faa'iideysatay قول با إنذير رجينا يا dhalinyarada Soomaaliya Jarmalka iyo Yurub ku dhaqan xalad dadaalo waalidka laga duceysto qof walbana halka uu dadaalkiisa gaarsiiyay ayaa sanooyin kadib dib loo daawan doonaa dadkuna waa marqaati ku dhow ama marqaati aan loo dirsanbo waxay leeyihiin war Cabdi muxuu sameeyay jaamac muxuu sameeyay adoo xaslada maxaa ka galay maahan dadku waa marqaati aan loo dirsan wada salaam ya saaxiibayaal مقال كلا يا إنه بلنا